madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa qaabilay safiirka dalka Mareykanka Ambassador Richard H. Riley. safiirka Mareykanka ayaa ugu horeyn madaxweynaha cusub ugu hambaliyeeyay xilka madaxweynaha Soomaaliland oo maanta si rasmi ah loogu dhaariyay. sidoo kale safiirka Mareykanka ayaa waxa uu madaxweynaha cusub u soo bandhigay sida uu Mareykanku ahmiyad gaar ah u siinayo inuu sii xoojiyo xiriirka Soomaaliland. Ambassador Richard H. Riley waxa uu si gaar ah hoosta ugu xariiqay in Mareykanku uu qorsheynayo iskaashi dhanka ammaanka ah inuu la samaysto Somaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa isaguna dhankiisa cadeeyay inuu diyaar u yahay sidii uu sii xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka. waxaan waqti tamar iyo tacab ku bixinaa sidii daawadayaasheeda aan ugu soo gudbin lahayn wararkii ugu dambeeyay dacallada adduunka iyo warbixino xiiso leh oo aanay hore u maqal. haddaba si aad ugu xidhnaato ka mid noqo saaxiibada barta Facebook oo ku soo biir adigoo odhanaya follow mahadsanid.